xubno sare oo ka tirsan guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista xaafadda Sheekh Nuur ayaa waxa ay booqasho ku yimaadeen maalintii shalay ahayd xarunta dugsiga hoose dhexe ee Samaraada. halkaasna waxaa ku soo dhaweeyay maamulaha dugsiga iyo macallimiinta. ugu horreynba halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida oo ardayda la wadaagay fariintii uu u siday. malakul jibriil waa malaa'igta waaweyn ee nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo sifadiisi malagnimada ayaan arkay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam 600 oo garab uu leeyahay. booqashadan ayaa ujeedadeedu ahayd inay ardayda gaarsiiyaan fariin wanaagsan oo isla markaana kala dardaarmayaan dhibaatooyinka waayahan dambe ka dhacaya magaalada. isagoo oo gudoomiye ku-xigeenku kala hadlaya ardaydu inay ka qayb qaataan waayahan dambe dhibaatooyinka ay dhalinyaradu ku lug leedahay ee ka dhaca xaafadaha magaalada ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa. laakiin haddaad qood faashsiiyato halkaa yaacaysa anaad tiraahdo kooxdaasa ku bile ka war ya soo halis maaha iska ilaaliya waa waxyaabaha khatarta ugu badan keena walaalayaal. gudoomiye ku-xigeenka ayaa sida oo kale waxa uu ardayda kula dardaarmay inay waalidiinta u nuglaadaan isla markaana ay u dhagan nuglaadaan maadaama ay iyaga u dhibirsan yihiin. cuntadii iyo labiskii iyo hawlihii oo dhan iyo qarashkii buu idiin soo diyaariyey wuxuu idiin eegayo wuxuu ka fikiray in fara badan bal macallimiinta ku habboon ee wuxuu ardaygan wuxuu maxaa dhahday maskaxdiisa iyo wuxuu jasadkiisaba dhisi karta. ugu dambeyntiina maamulaha dugsiga ayaa halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyay gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnihii kale ee la socday. Samaraad dalkeena haawiye isaga u dadaalo haawiye duqaydiyo caruurta haawiye dumarkiyo rijaasha